السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن دعوة كسو دو كورنت أكاديمي 10 عصب وكسابسن سيدا الله استعماله SPSS كا SPSS كا وسوفتوير كا حالكن كاغا مقدم مركا اد سو فرتيد با ugu horeysa shaashadan ayuu ku keenayaa marka halkan waa Antethered 5 key shanaado ii furan weeyaan iminka kuwa kala ii furan laakiin waa key shanaado furan marka hadii adii kood uu ku yahay one ku noqonaya ama wax kala laga yaabo kugu qoro SPSS ka waxaan u baranaynaa oo aan tusaalaheena ku saleynaynaa oo aan casharkan ugu talagalay arday diyaarinaya buugga jaamacadda oo loo diray in uu soo baaro xiriirka ka dhaxeeya laba doorsoome laba shay xiriirka ka dhaxeeya dabeedna uu questionnaire qaatay soo buuxiyay questionnaire-kii uu doonayo inuu analyze gareeyo questionnaire-ka marka aad soo qaadid ee aad yacni dadkii u tagtid respondents-ka ahaa ee aad ka soo buuxisid questionnaire-kan وداتو يعني عيرين او ان بسلين معناها ورقه fara badan weeyaan oo malaha dhowr boqol oo qof baa laga yaabaa inaad ka soo qabatay daatada marka way kala way badan yihiin waxaan marka halkan ku qoran macnahoodu waxa uu yahay waxa soo saari kara oo kale kaliya يعني inaad software ku falanqeysid ku analyze gareysid SPSS kuna wuxuu kamid yahay software-rada loogu kalsoon yahay sida ugu wanaagsan وسميه ما هكلي software kala duwan baa jira wuxuu ku sameeyaa xiriirka laba shay ka dhaxeeya wuxuu kugu sameeyaa isagoo descriptive ah ayuu ku sameeyaa wuxuu ku sameeyaa relationka labada shay ka dhaxeeya iyo say isku sameeyaan intaba marka waxaan arki doonaa insha Allah casharada baan ku baran doonaa correlationka iyo regressionka labadaba ku baran doonaa iyo descriptive analysis-ka intaba ku baran doonaa hadii la laakiin caawa waxaan ugu talagalay inaan sharaxo basic-ga ugu horeeya inta ugu horeysa ee aasaaska ah marka aad doonaysid software isticmaashid software marka soo furatid ee ugu horeysaas weeyaan waxa ku xiga waxa marka talaabada aan rabnay inaan hadda qabanno waxa weeye questionnaire-kan su'aalihi noogu qornaa ee noo diyaarsanaa iyo waxaan isbaraynaa software-ka ayaan isbaraynaa halkan dhowr iyo 20 su'aalood baan qofka ku soo weydiinay tusaale ahaan dhowr 20 su'aalood waxay u kala baxaan laba qaybood weeyaan qaybta koowaad oo ah background information oo qof kan aad wax ka aruurisay nooc yani magaciisa ma ahane ragba ma dumarba da'diisa shaqadiisa hantidiisa oo kale ama waxyaabaha wax uu soo galo oo kale hadii aad u baahan tahay heerkiisa waxbarashada aqoontiisa heerka ay taagan tahay intaas waxa la background information ama xogta asaasiga ah qofka waxa kale oo iyadana ku jirto oo la weydiiyay waxa weeyaan qaybta labaad oo ah وبعدي أدو سعوتي أو يعني variableski doorsoomayaashii aad raadinaysay su'aalaha la xiriira wixii aad baaraysay marka kulli halkan aad gelinaysaa computer-ka aad baraysaa su'aalaha ku qoraysaa kadib baad qof u gelin doonaa marka si aan su'aalaha computer-ka ugu qorno waxaan tagaynaa halkaas ay ku qoran tahay variable view markaan ku dhufano waxay noo soo baxayaa halkaas magacii type-ka width-ka decimaliska labelka value-ga missing-ka columns intaas oo dhan baa soo baxaysa marka waxa ugu horeeya aan qabanayno waxa weeyaan halkaas aad ku dhufanaysaa click dabeedna waxaad ku qoraysaa su'aasha ugu horeysa aniga tusaale kale questionnaire-kan aan tusaale u soo qaadanayna ku qoran background information waxa weeyaan gender what's your gender baa weydiiyay marka halkan gender baad ku qoraysaa xasuusno halkan space ma bixi kartid marka halkan wax ku qortid space ma bixi kartid saasaad ama tab ku leedahay ama click halkaas ku seenaysaa kadib halkan waxba ku qormaya waxa ku qoran oo dhan sidoo isaga daa numeric taas oo kale waxay u baahan tahay yani inaad fahantid numeric ta hadii aad raadinaysid yani inaad waxan scale code raadisid oo kale numeric baad diisanaysaa hadii kale waxa laga yaabaa inuu ku siiyo starring inuu kaaga dhiga suurtagala marka numeric ka dhiga markasta si aad numeric uga dhigatidna halkaas aad ku dhufanaysaa kadib waad arkaysaa numeric anaga marka numeric baan doonaynaa then tab baad ka soo soconaysaa halkaas label baad imaanaysaa label waxaad ku qoraysaa su'aashii oo dhameystiran oo ahayd what is your gender oo kale question mark kadib halka value-ga ay ku qoran tahay value-ga halka ay ku qoran tahay iminka waa none macnaheedu waxa weeyaan waxa software-ka hadda halkaas laga baraa su'aalaha aad soo weydiisay ahayd what's your gender marka tiri laba option baad siisay sida caadiga male ama female lab ama dhadig labadaas siisay marka lab iyo dhadigkeeba ku horeeya waxa laga yaabaa male-ka ku horeeya ama female-ka ku horeeya marka mid kamid ah number 1 siinaysa midna number 2 baad siinaysaa
halkaasaad ku dhufanaysaa maxaa yeelay hadhow markaad questionka buuxinaysid qofka waxa uu doortay unbaad qoraysaa keliya taa koowaad hadduu doortay lambar 1 baa u qoraysaa taa labaadna lambar 2 marka halkaasaad ku dhufanaysaa lambar 1 then male add baad leedahay adoon ka bixin weli lambar 2 female add okay baad leedahay su'aashaas saasay noogu dhammaystiran tahay su'aasha labaad ee aan weydiinay waxa weeyaan what's your age oo kale age baad ku qoraysaa space buu qoraysaa halkaas age markaa qortay saasaad uga tagaysaa halkaasaad imaanaysaa levelka what is question mark dabeedna halka value ga tagaysaa ku dhufa value ga age-ka aniga waxa ii dooran saddex yani saddex qaybood baan u kala qaybiyay waxaan u qaybiyay dadka aan target gareynayay aniga waxa ugu yar 20 jir waxaana 50 sano qofka weyn waa laga yaabaa in la helo marka 15 sano u dhaxaysiiyay 20 jir ilaa 35 jir 36 sano jir ilaa 50 sano jir iyo 50 iyo wixii ka sareeya ayaan ka dhigay marka waxaan qiyaasay 50 iyo wixii ka sareeya inuu yar yahay sababtoo questionnaire kan waxa laga soo buuxiyay TV station dad wariyaal laga buuxinay marka TV-ga dadka shaqeeya waxaan qiyaasay inay inta ku badnayn marka waxa taabanaysaa number 1 waxay ah 20 ilaa 35 add baan leedahay number 2 waxay ah 36 ilaa 50 add number 3 waxay ah above 50 okay add baan leedahay question kaas saas ugu jira okay su'aalihi kalena saas u gelinaysaa tusaale education ka oo kale education su'aasha what's your educational level ku dhufo halkaas aad tagaysaa what is your educational level question mark kadibna halkaas aad ku dhufanaysaa educational level ka meesha aad ka bilaabi kartaa anigu waxaan ka bilaabay high school number 2 high school add baan leedahay number 2 diploma add number 3 bachelor degree number 4 master degree number 5 doctorate degree or PhD okay then okay halka waxa igu diyaarsan saddex su'aalood oo ayaan had diyaariyay kadib waxaan markaad kuwa soo dhameysay waxaad u imaanaysaa su'aalahaagi kale options ka kala duwan aad siisay tusaale kale waxaan weydiiyay aniga su'aasha koowaad waxa weeyaan there is no waxaan u kala qaybiyay labada doorsome waxaan baaraynaa waxa weeyaan management functions ka saameynta uu ku leeyahay business performance management functions ka waxa loo kala qaybiyay marka la joogay conceptual framework waxa loo kala qaybiyay afar qaybood oo ah organizing planning controlling iyo directing dhinaca kalena business performance gana waxa loo qaybiyay laba qaybood oo kala ah customer satisfaction iyo staff satisfaction marka su'aasha koowaad ee organizing laftigiisii ayaa wuxuu sii yeeshay ilaa afar su'aalood su'aasha koowaad waxa weeyaan there is no adequate okay su'aasha halkaas su'aal kuma qorayna soo raal lahada marka there is no adequate human resource allocation baa ku qoran su'aasha koowaad marka HR baan iska qoranaa oo calaamadsanaynaa kadibna halkaas aan tegaynaa su'aashii oo dhameystiran halkaan lagu qoray there is no adequate human resource allocation okay qofka markaas waxaan siiyay 5 option oo kala aha number 1 strongly disagree okay number 2 disagree number 3 no comment qofka xor buu yahay agree iyo number 5 oo ah strongly agree haddii aad adiga significant raadinaysay waxaad ka dhigan kartaa significant is significant no comment no significant yani saasa ka dhigan sida adiga kugu qorshaysan halkan marka sharaxaad yar aan galo
strongly agree waxay qaadanaysaa value-ga ugu badan maxaa yeelay iyada ayaa weyn marka la barbar dhigo strongly disagree ayaa value-ga ugu yar qaadanaysa marka saas u soconaysa haddii soo kalena yes or no question-kaaga uu ahaa oo question yes or no aad weydiisay waxaad u gelinaysaa tusaale kale are you single or married oo kale okay single okay ka soco kadibna question kale are you single oo kale qofku weydiisay halkaas value-ga oo kale yes or no haday tahay no da waxay qaadanaysaa markasta 0 no qofka 0 baad siinaysaa value-ga 0 means no marka kan decimalka 2 buu ku daraya maxay la halkaas ay noo tahay decimalka 2 bay noo tahay haddaad 1 ka dhigatidna 1 buu kaaga dhigay haddaad 0 ka dhigatidna saas kaaga dhigay number 1 na waxaad siinaysaa yes oo kale marka sababta loo siinay waxa weeyaan 1 iyo 2 hadii la siin lahaa waa laba value isku dhow laakiin 0 iyo 1 waa laba value aad u kala duwan in sida loo garto markaas aad okay leedahay halka marka su'aalaha ku diyaarsid waxa tagaysaa qaybtaas ah data view-ga waa meesha aad hadda gelinaysay questionnaire-ka wixii ka soo baxay hadda hal questionnaire baan gelinay yacni su'aalihii ma wada gelin laakiin qayb baan geliyay questionnaire-ka halka aad gelisay ayaad halkaas waxaad gelinaysaa tusaale kale what's your gender hadduu male doortay qofka 1 qofkii koowaad okay ta labaad what's your age wuxuu doortay number 2 education wuxuu doortay number 2 tan kalena wuxuu doortay number 4 tusaale ahaan oo kale are you single or married yes buu yiri number 1 okay sababtoo yes number 1 bay kugu qoran tahay saas markaad u gelisid daatada way kugu jirtaa waxaan tusaale u soo qaadanayaa data halkan ku diyaarsan oo kale xogtan waxaa soo furaya datadan okay tusaale kale datadan waxaa diyaarsan 22 question baa halkan ku jira 22 su'aalood ayaa halkan ku jira oo aan geliyay oo ay ku jirto background information iyo su'aalihii kaleba marka data view-ga markaad tagtid su'aalihii wixii qofku u yiri baa saada ay ugu qoraysaa tusaale ahaan oo kale hadda way noogu qoran tahay oo 31 qof soo ayaan gelinay xogtood markaad xogta sidaas u wada gelisid oo aad dhammaan su'aalihii wada gelisid waxa talaabada ku xigta waxa weeyaan ay tahay inaad qaadid cleaning datadan halkan kugu jirta bini aadan barnaamij markaan ku qorino waxa laga yaabaa halkaas oo aan 2 rabo inaan ku qoro ayaa laga yaabaa inaan 22 ku qoro saas ayaa laga yaabaa inay iga noqoto anoo 2 doonay inaan ku qoro waxa laga yaabaa halkaas oo aan doonay inaan 2 ku qoro in 0 iga noqoto ayaa laga yaabaa marka aad gelinaysay ayaa laga yaabaa in wax ka khaldameen si aad marka u hubisid inay daatadu ku saxan tahay waxaad tagaysaa analyze kadibna waxaad tagaysaa descriptive analyze kadibna descriptive kadibna alla hada muska kadibna frequency ayaa tagaysaa frequency markaad tagtid hadda ku wada jiraan okay saas weeyaan marka frequency saas ku ahaan doonta adiga kadibna halkaas aad wada geynaysaa dhammaan intaad select all tiraahdo control A baad leedahay halkan ku yaalo dhan kadibna halkaas aad variables kaas aad geynaysaa statistics baad tagaysaa maximum iyo minimum labadaas waa inay check ku saarnaado standard deviations ki mean ka hadaad rabna xataa waa iska din kartaa laakiin maximum minimum ka si aad u ogaatid inuu khaldan kale then okay baad leedahay continue baad leedahay okay baad leedahay halkan marka waxa soo baxaya halkaas ku soo baxaya halka missing-ka ay ku qorantay valid-ka 330 questionnaire ba meeshan ku jiray 330 kii baa ku jira missing maxaa ah 0 every question waa dulka tagaysaa marka ilaa halka ugu dambeysa su'aalihii weeyaan xaggan sare kuwa ku qoran marka ilaa xagga ugu dambeysa tagaysaa su'aalihii oo dhan mid waxba missing ma jiro midna waxba kama maqna marka macnaheedu datadaadu waa ku clean hadeer waa data in la falanqeeyo diyaar u ah online maskarayo halka marka ay ku joogto marka oo halkaas aad maraysid talaabada ku xigta waxa weeyaan xogtan inaad reliability-geedina eegtid kadibna aad analyze gareyso oo falanqeysid halkaas intaas ku xigta si marka 10 labaad baan ka dhigi doonaa qaybtaas xaqiijinta iyo sida loo falanqeeyo labadaba laakiin intaas basic ah ayaan rabaa inaan ku soo koobo waxaan kuugu darayaa xogta marka aad qoratid waxaad samaysataa mar walba save dhaho si aad u ogaato inay save ku tahay xogtaada ay ku save gareysan tahay halka ciwaanku uu ku qoran yahay last data mahad.sf ku qoran marka saf halkaas xidigta halka ka soo horeysa
waxay calaamad u tahay in data xogtani aysan save garaysnayn ee wax laga bedelay si aad u save garaysid marka ama halkaas aad ku dhufanaysaa ama file save baad leedahay ama control s markaad save garaysid xidigta way ka baxaysaa markaad xidigtaas weydid macnaheedu wuu save garaysan yahay xogtaadii magacaad garanaysadna ku qoro aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii wax su'aal aad qabtidna commentiga hoose ayaad igu soo weydiin kartaa haddii aad garanaysid cid u baahan in casharkan ay daawatana fadlan la wadaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay